بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi maxmed idris lesto waxaan deganahay baydhabo shir jaraa'id ayaa maanta waxaan ku qabtay magaalada baydhabo shirkaas jaraa'id oo aan kaga hadlayo been abuur la iga soo sameeyey oo iga soo samaysay kooxda al-shabaab oo ay yidhaahdeen cabdullaahi lesto baa waxuu dilay saraakiil sarsare al-shabaab ah wuxuuna soo adeegsaday niman al-shabaab ah waxaana twitterka iyo website-yada lasoo saaray nin oranaya cabdullaahi maxamed idris lesto isku familia nahay isku qabiil baanu nahay waa nin catolica ah oo u shaqeeya CIA-da maraykanka waxyaaba sidaas ayuu daldalay oo soo saaray idaacooyinka dhan ku sheegay oo soconaya 25 daqiiqo oo kale soconayay ninkiina waa la dilay been abuurkaas waxaa iga sameeyey nimankaas markaan hoosaan u fiirino been abuurkaas waxaa ka dambeeya arrimo dad siyaasiyiin oo soomaaliyada ka dambeeya oo ama aqaan aniga inaan challenge ku ahay ay u dareersan yihiin oo siyaasad loobin ah kula sameynayo kuwaas ayaan u maleynayaa inay waxaas ka dambeeyaan aniga nin maraykan ayaan ahay horta midda hore oo idin sheege adduunka dadkaan ugu jeclahay ilmahayga iyo xaaskayga iyo asxaabtayda aan adduunka ugu jeclahayn waxay degan yihiin America horta Soomaaliya waxaan idin sheegayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dawladda Maraykanka dadka Soomaaliyeed markay dagaalada sokeeya wadankan ka dhacay dawladda kaligeed iyo shacabka kaligiisa badbaadiyay Maraykanku ahaa aniga Maraykan uma shaqeey laakiin waan ahay waana cidaydana meesha reerkaygana meeshuu joogaa wax lagu yaxyaxo waaye in la yidhaahdo Maraykanka saan yeelay Maraykanka saas yeelay CIA waa hebel hadda shabaabka tabardarri ayaa ka muuqata hadday arrintan shabaab ka soo baxday ninkan shabaabka ah wax uu sheegayo shabaabna ay la qabaan waxaan dareensanahay shabaab inay tabardarra ay ka muuqato waxaa Soomaalidu ay tiraahdaa nin daad qaaday xumbo cuskay shabaab tabardarre idan hayso haddaad bal leedihiin maanta nin dad siyaasiyiin ah inay idan adeegsadaan oo lacag idan siiyaan oo siyaasi kale oo gurigiisa jooga oo nabadiisa qaba leediraad hebel baa waxa sameeyay noo soo dila oo idaacooyinka waxaas aad ku sheegtaan idinkoo aad baarin idinkoo aad ogeyn nin innocent ah waxba aan ogeyn adduunka baan nabadiis gurigiisa u jooga waxaas ku sameysaan aadan uga xumay shabaab inaad tabarbeeshana u maleynayo haddii qadaydii weyneed idinka aad ku jirteen aad ku bedelataan inay shakhsiyaad muslim ah oo Soomaaliyeed inay didishaan horta taas waa ka xumahay waxaa arrinta la yaabka leh oo aan meeshaas ku arkay in la igu yidhaahdo anigoo nin muslim ah la yidhaahdo waa catholic diin ma haysto diin Christian waaye CIA-da u shaqeeya CIA aniga mana aqaan CIA-na uma shaqeey CIA-da waxaan maqli jiray Pentagon-ka meel yiraahdo in laga xukumo oo Washington iyo Virginia meel u dhaxaysa ay degan yihiin dhigtaas waan ka maqlay laakiin aniga CIA mi shabaabna ha ogaato Soomaali badan ha ogaato laakiin Maraykanka hadii la yiraahdo aniga nin Maraykan baan ahay Maraykankana dhib ma u geysanayo haddii diyaaradda oo wax rusheysay oo dadkaas shabaabka dishay oo aniga remote control lagu waday ninka remote-ka haye ma ihi aniga hadday diyaarad pilot saaran ay ahaydna pilotkii diyaaraddaas waday oo dadkaas qarxiyay ma ihi kii remote-ka u haayayna ma ihi horta intaasaan u sheegayaa cid allaale ciddii aan waxaan igu eedeynaysana waa mid cid gardaray igu maagayaan shabaabka iyo anigana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhexdayna ku jira ilna isma saarayna mana is arkayna mana ii imaan karaan mana arkaay mana idili karaan wax qof aan ilaahay ahayn oo idili karana wallahi inuusan jirin ilaahay unbaa idili kara isagaa risaqna isiin kara isagaana nooleyn kara isagaana ibaabi'in kara shabaab aan waxba ma iga qaadaysin idinka waad iga gardarantiin gardara aan geed looga soo gabanaad iga gardarantiin shabaabow iga hara nimanka kale oo shabaabka dhaqaalaha siinayo oo siyaasadda aan ku loolomaynana ilaahay idinku dhaariye risq ilaahay idin soo qoray aniga ma hor istaagi kari
waxaan u sheegayaa dadkaasna in ay ka waantoobaan soomaali waa wada dhalatay dad qaraabaa leeyahay siyaasadda ninba meeloo kasoo gala haddaba aniga dawlad aan sameeyaya jirtay oo koonfur galbeed sigis la yidhaahdo 6 gobol si demoqraatiga ah lanoo doortay nidaam badan aan ka sameynay haddana qof baa iska yimid oo waxiisa iska qaatay wax aan dacwo qabnaa gurigeygaan joogaa gurigeygaan ku suganahay nabadeydaan qabaa wax ninna challenge kumihi ninna dhib ma u geysanayo anigana waxaan ka codsanahayaa dadka yaan dhib ii geysanin ilaahayna waxaan ka baryahayaa aniga iyo dadka karna il iyo baar baan kala nahay dheg iyo baar aan kala nahay ilaahay hana kala badbaadiyo ilaahay aan ka cabsanayaa ilaahay aan waloodii saartay ilaahay aan ka cabsanayaa daasid wax kaloo dhibaato eena ma jiraan wabilaahi tawfiiq shir jaraa'idkaygana halkaasuu ku egyahay waana mahadsantihiin intay dhegaysanaysa inta fiirsanaysa kulligood mahad weyn baan idin celinayaa